markaad rabtid naftaada inaad la hadashid waxaad tidhaahdaa sidaan ahay haddaanan beddelin noloshaydu isma beddelayso kadibna naftaada diiradda saar qofku meel baa jirta uu wax ka bilaabo nolosha haddii meeshaad wax ka bilaabi lahayd aadan garanayn ama ay kaa qaldan tahay noloshaada isbeddelka aad rabtid iyo sida aad rabtid in ay noqoto waxyaabaha kugu adkaynaya ka mid tahay dhan kastaba kobci noloshaada kobcitaankaas waxaa waaraha uu ku socdo intuu doonaba ha la ekaado marba haddii aad dhaqaaqaysid intay doontaba ha la ekaatee yaysan kula yaraanin waxaad 200 oo jeer dhaantaa qofka sugaya maalin noloshu intay fursad siiso inuu hal mar isbeddel samayn doono inta badanna sida la ogyahay nolosha taasu ma dhacdo mana xaqiiqo dhab ah oo lagu noolaan karana maahan haddii aad ba socotid diinkaba aad ka gaabiside 200 oo jeer waxaad dhaantaa malaayiin dunida maanta joogta mid maanta meel igaga qor wax walbaba nolosha iyagoo dhammaystiran lama helo maalinba shay baa kuu imaanaya maalinba dadaal baa kuu kordhaya maalinba meel kala noloshu iftiinkaaga daaraysa sidaad u socotid baad marka dambe gaaraysaa waxa aad ku haminaysid dhammaystirkooda haddaad filaysid in wax walbaba hal mar ay dhammaystirmaan naftaadu way daalaysaa go'aankaagii waad ka laabanaysaa qof meel iska taagan oo dib u noqdo marka dambe ayaadna noqonaysaa waad ka soo fogaatay deegaankii hore maanta ayaad shalay uga dhowdahay meeshaad u socotid dib ha u noqon ha istaagin weligaa gadaal dib nolosha ha u fiirinin in aad wax uga baahan tahay noloshaada wakhtigan hadda aad joogtid aad ku horumarin kartid maahane gadaal waxba kaama jiraan dhibaatooyin habeenna walwal badnaa jilicsanaan badan oo kugu jiri jirtay wax badan oo aad ka soo kortay ka soo dhex baxday naftaadu ay nici jirtay uunbaa inta ugu badan 80% gadaalkaa jira weligaa noloshaada dadaal yuusan kuu yaraanin halganka nolosha aad ku jirtid haddii lagu arko iyo haddii kaleba mar kastaba mid taagan oo joogtaa ha noqdo haddaad keligaa tahay iyo haddii malaayiintu ay ku daawanayso waayo intuba macno ma keenayso haddii adiga naftaadu waxaad samaynaysaa kula weynayn marka bini'aadamka aad fiirinaysid iyaga bal inaan ku raali geliyo inay ii sacbatumaan in ay isoo dhoweeyaan inaan magac iyo maamuus ku dhex yeesho waa inta ugu badan waxa keena qofku in uu dhaqaaqi kari waayo nolosha waayo waxaad ku xiran tahay waa bini'aadamku hadba say kuu arkaan ayaad naftaada dhaqaaqeeduna ku xirnaan doonaa in badan oo ka mid ah hadday ku xasdaan kuu garan waayaan waxa aad tahay iyo waxaad samaynaysidna waad niyad jabaysaa naftaada gudaheeda waxa aad ka tahay iska fiiri ha fiirinin bini'aadamka kale eeg adigu shakhsiyadaada waxaa tahay eeg kartida ilaahay uu ku siiyey eeg hibada aad leedahay eeg adigu sida aad tahay naf ahaantaada go'aankaaga taladaada caqligaaga kartidaada dhammaystirnaantan ilaahay uu ku siiyey ha kula weynaato oo dagaalanka isku filnaanshaha noloshaadu adkaysi badan buu kaaga baahan yahay awooddii waa layna ku dhex rakibay dadka qaarna way ka shaqaysiiyaan way yaqaanaan qaabka loo isticmaalo maskaxdooda iyo dareenkooda iyo naftooda sida loo kontaroolo way yaqaanaan way barteen dhibaatooyinka iyo duruufaha kala duwane bini'aadamka soo maraya ayaana wax bara dhibaato kasta oo ku haysata iyo mushkilad kastoo maanta aad ku dhex jirtid iyo caqabad kastoo maanta ku hor taallaba kuulama joogaan kuugumana imaanin in ay nolosha kugu silciyaan ee waxay kuugu yimaadeen in wax lagugu baro maalin xun nolosha ma jirto innagaase u fasirana maalintaad u aragtay inay noloshu kuugu xumayd waa maalintay wax ku baraysay cashar kasta oo ku jirana dadku badankood ma wada fahmaan haddii ay caqabad ku hor taalla ama dhibaatooyin ay ku haystaan dhibaatooyinka faa'iidooyin badan baa ku jira dhibaatooyinka waa meesha qofku uu ku kobco waa meesha qofku uu xoog ku helo waa meesha qofku uu go'aan adayga ku barto waa meesha qofku uu dulqaadka ku barto waa meesha qofku uu wax ku noqdo qof aan dhibaatoonin qof aan walwalin qof aan murugoonin qof aan ciil marin nolosha waxba ma noqdo qofku inta uu raaxo iskaga jiro wax walbaba ay caadi la yihiin noloshiisu caadigaa uun bay ahaanaysaa laakiin haddaad rabtid darajada aad joogtid inaad kor uga kacdid in aad meel sare nolosha tan gaartid hadafyada iyo riyooyinkaagana ay kuu rumoobaan
waa lagama maarmaan noloshu in ay maalmo badan oo adag iyo habeenno badan oo mugdi badan shaqo badan iyo daal badan nolosha inay ku soo marto markaasaana naftu wax noqotaa dadaalkuuma yara ha isyaraysanin inta aad maanta qabanaysid waa kugu filan tahay intaa uun joogtaynteeda ayaa wax walba ka muhiimsan bini aadamku ogow inta adigu aad uga ogolaatid bay iyagu meel xun ku dhigaan inta aad uga ogolaatid ayay bini aadamku ku ixtiraam xumeeyaan qof haddaad aragtid oranaya qofkaas wuu i xumeeyey qofkaasu sidaasuu i yeelay qofkaasaa meel xun nolosha i dhigay xaqiiqadu waxay tahay qofkaasu isagaa u ogolaaday inuu qofkaasu meeshaa dhigo adigu naftaada kontaroolkeeda awooddeeda inta bini aadantinimo ilaahay kuu dhiibay yaysan noqonin mid bini aadamka kale gacanta ugu jira yaysan noqonin mid aad naftaada qaybaheeda jilicsan gacanta u gelisay ogow adigaa laba dabaqadood ka kooban adigaa laba kooxood oo iska soo horjeeda ka kooban kooxna waxay ku leedahay waxbaha qabanay iska hurud waa inta subaxii bay dagaal galaan iyagu weerarka ugu badan subaxii bay qaadaan joodariga inaad ka degi weydo inaad shaqo soo buuxsan weydo inaad naftaada wax qabsan kari weydo inaad waxbarashada iyagu halgankaasay ku jiraan kooxda kale inta badan waxaa la jabiyaa waa marka ay baqdo iyadu dhaqaaqi weydo waa marka telefoonkaagu qayliyood kiici weydo waa marka iskuulka wakhtigiisa kuu joogo oo aad nacaysid waa marka shaqadaadu taagan tahay inaad wakhtigaa wax qabatid laakiin waxqabadkii aadan rabin ee ka dooranaysid telefishinka aad ka dooranaysid telefoonka aad ka dooranaysid asxaabtaada aad ka dooranaysid wax kasta oo noloshaada dib u dhigaya doorashada inaad noqotid qofkaad shalay ahaan jirtay mid ka duwan ayaa bini aadamku isku dhaafay tartanka ugu weyn waxaad la gashaa naftaada tartanka bini aadamka kale lala galo inta badan lagama guul gaaro hadday noqoto lacag qofkaa lacag badan baa weligiiba dunida laga helaya hadday noqoto qurux qofkaa qurux badan baa weligeedba dunida laga helaya hadday noqoto caqli weligeedba qofkaa caqli badan dunida laga waayi maayo wax kasta oo aad tahayba qof adiga wax ku dheer dunida lagama waayiyo laakiin cidda keliya la hubo boqolkiiba boqol in aad wax dheeraan kartid waa naftaadu qofkay shalay ahaan jirtay markaad dib u milicsatid qofkaad shalay ahayd iyo qofka maanta aad tahay maanta qofka aad tahay ama wuu ku farxad gelinayaa ama wuu ku murugo gelinayaa inuu ku farxad geliyana adigaa sabab u ah inuu ku murugo geliyana adigaa sabab u ah qiyaasta saxda ee noloshu ay leedahay ee qofku inuu wax ka fiiriyo mar walbaba muhiimad siiya ay tahayna waa meesha tan naftaada dhiirigelinta ay haysato dhiirigelinaha tirada badan ee qofku uu helo teeda ugu xoogga badani waxay ka timaadaa markaad maanta iyo shalay waxaad ahayd isbarbar dhigtid maxaa yeelay si aan u ogaado in aan dib u noqday iyo in aan horay u socday waa inaan labadaa isbarbar dhigo shalay iyo maanta markaan arko in shalay aan ka fiicnaa maanta inuu dib u dhac iyo dib u socod igu yimid baa ii cad markaan arko maanta inaan ka fiicnahay shalayna inaan horumar samaynayo oo horay u socdo ayay i tusaysaa waxaanad ogaataa oo maanta kayd ahaan u sii qaadataa dhowr waxyaabood fikradaha dadku yaysan noqonin runta adigu aad ku nooshahay qofka bini aadamkaahina ma dhammayn karo wuxuusanba bilaabin shay kasta oo dhammaystir laga rababa waa lagama maarmaan inuu bilow jiro naftu sideedaba guud ahaan inaad ka adkaatid baad wax meel ku marin kartaa nolosha tan dadku waxay ku leeyihiin macquul ma aha naftu waxay ku leedahay waa daal runtuna waxay ku leedahay waad ka fiican tahay sidaad ismooday xaqiiqada dhabta ahina waa markaad naftaada mar walba dhiirigelinaysid taasaana horu socodka qofka bini aadamkaahi ka dhashaa shay kastaba adduunyada wuxuu nafaqaysto quud u ah buu leeyahay ruuxdan waxyiga ilaahay baa quud u ah waxyiga ilaahay ayaa naftu ku xoogsataa iimaankeeduna ku kubacaa jirkan qofka bini aadamkaahi cuntada iyo nicmada ballaaran ilaahay adduunka u dhigay ayuu ku koraa isweydiintu waxay tahay qofka bini aadamka horumarkiisu quudka uu leeyahay muxuu yahay quudka qofka bini aadamka horumarkiisu waa in lagu caqabadeeyo waa in dhibaatooyin badan lagugu qabto waa in lagu imtixaamo waa in ciil lagugu dilo waa inaad nolosha mararka qaarkood xataa aad waxaad ka fakartid iyo waxaad qabatid garan weydo maskaxdaadu eber ay soo istaagto marmarka qaarkood inaad tabartii awooddaad wax ku qaban lahaydba aad weydo in nolosha lagu caqabadeeyo oo lagugu dhibo oo ciriiri badan aad ku dareentid ayaa qofka bini aadamka horumarkiisa quud u ah maxaa yeelay shayga si fudud lagu helo nolosha si fudud oo sahlan ayaad isaga sii daysaa waayo qiimihiisaba ma taqaanid